السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام صاحب يال ما تنو حربا إن كلا صارنو لبنين وذا الشهيد والمجاهدين ولكن كلا تيتلا بيلا بدنا Soomaaliyeedna isku haystaan isku qaldaan arabi inaan ka hadlo waxaa jira sawir lagu soo shirgareeyay oo Cabdisalaam Hareeri iyo oday kale oo isla jooga maxaa la sheegay taalada Axmed Gurey ee uu magac dareen laga dhisay aagay Somaliland waxaa rabay inaan ka hadlo oo dhalinyarta kala saari la-dahay horta Axmed Guriyaashu mahala ma laba inaan isla fahno horta Axmed Guriyaashu waa laba midna waa imaamka guud ee islaamka uu ahaa midna waa mid imaam beeleed imaam Axmed Ibrahim Axmed Alqaazi ama Etoobiyaanku u garan ogyihiin xabashida Axmed Garay Soomaalida u taqaan Axmed Gurey kaasi waa imaamkii saldanadii adal oo ahaa imaamka guud ee islaamka xilliga okay midka kalena magaciisa maxaa la mid kale waxaa lahaa buugga farshankiisa English waxa uu qoran Axmed Giri bin Hussein ku qoran laakiin farshankiisa Carabiga waxa ku qoran Axmed Gurey bin Hussein kaasina wuxuu ahaa beel hebel lama dhihi karo laakiin waxa ku cad in laba mar asoo beelo kala duwan hogaaminay page-ka 14aad ee buugga Futuuxul Xabashka waxa ku qoran inuu mar imaamku iclaamiye dagaal lala galay xabashida dagaalkaasi qabiilka uu horeeyay imaamka soo garab istaagay ee noqdeen qabiilka loo habar magaadle oo uu horkacay Axmed Gurey bin Hussein sidoo kale page 24 waxa ku xusan mar kale inuu noqday hogaamiyaha qabaa'ilo kala duwan oo kala ah beesha Mareexaan Gurgure iyo habar maqdi iyo habar magaadle waa kala duwan yihiin habar maqdi oo qolo bartira oo jid waaqa habar magaadlena waxa la isku dhahaa kulay lafa kala duwan oo dirta ka tirsan ninkaasi labadaas mar oo soo muuqday marna qabiilo badan wuxuu ahaa sayidkoodii oo dagaal ku hogaaminaya ama taliyahoodii mar kalena hal beel kaliya soo hogaansanayo oo hogaamiye u ah oo wuxuu noqday qabiilka uu horeeyay imaamka soo garab istaagay marka kaasi waxaa la Axmed Gurey bin Hussein beesha walaalahan Samaroon xogta way haayaan oo in Axmed Gurey nin la dhaho ayaga kulay ka dhashay ehel ahaan ama Samaroon ha ahaado ama Ciise ha ahaado ama maxaa la sheegay Isaaq ha noqdo whatever kulay habar magaal hal cid lama dhaho cid kala duwan oo Isaaq ka mid yahay aan isku dhaasaa xogta ku haayo habar magaalahaas inuu ka dhashay Samaroontu way ogtahay laakiin yuu yahay kan ka dhashay kulay taariikhdu way qoran tahay buugga Arabic version-ka waa old version waxa laga heli karaa sheegay Riyadh University sidoo kale waxaa jira Futuuxul Xabash oo ku qoran in Ga'iis luqadda Ga'iiska oo ayagana qoran in Tigreya waxaa jiro asoo English version imaam Axmed Gurey ciduu yahay meesha ku dhashay qoranta imaamka islaamka oo la oran jiray imaam Axmed Ibrahim Axmed waxa waaye nin ku dhashay Hobad juf ahaan ka soo jeeda Balow ninkaasi waa nin si hawlo karan la way cadahay ninkan kalena waa nin la dhaho Axmed Gurey bin Hussein abtiraan xataa isku meeko Axmed bin Ibrahim Axmed iyo Axmed Gurey bin Hussein waa laba magac kala duwan naanestooda kulmisay iyo bilaag hore Axmed wada ah marka waxa rajeynaa dhalinyarta isaga qaldan tahay inay fahmi doonaan waana mahadsantiin